الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وزير رضا حلبان نضا لبضا أقل دوبابك واسكو الرأيو سمضا هوينك لمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii maanta farxad ayay ii tahay inkastoo aan ahaa originka reedaynayla aan u badnaa halkan hawlo badanna aan ka soo qabtay laakiin maanta anigoo xilka hayo inaan imaado aad ayaan ugu faraxsanahay. degmadan waa ay ka duwan tahay degmooyinka kale ee magaalada muqdisho. waa degmo haysata fursad ballaaran dadkeeduna ay yihiin dad xadaarad leh oo midaysan oo nabadoonna ah. runtii hadday hadalkii walaalkay wasiir Sambalosh uu sheegay afarta walxood uu sheegay reedaynayla waa ka duwan yihiin. runtii waa dad midaysan, waa dad xadaarad leh, waa dad hogaamiye dhaqaalaha dalka iyagoo intaas kulansaday haddana waa dad istaahilay inayna hogaamiyaan maadaama ay yihiin orodkeennii. waxaan kaloo rabaa Sambalosha maanta hadal qabsiga ugu badan yahay markaan imid dadkii eedeeyo ku jira aad ii eedeeyay waxba ma haysid fadhiidaa tahay barafaad tahay qaboobaad tahay erayga ugu badnaa oo aan necbanaan wuxuu ahaa doorkaaga ma qaadatid. markuu iga tagay waxaa yimid cabdi qaybdiid adeerkay senator cabdi qaybdiid oo xanaaqsan oo idahay cirka ma ka soo dhacda adiga waa fiiriyey ilaan qof kasta Soomaaliya xaq buu leeyahay meeshaas Soomaal waxaan dhahadeer aniga cirka kama soo dhicin adiga magaaladan jiddi keenay 30 sano ka hor jinniga keentay ninka saar lahaa ayaan ahay. marka jinnigaas 30 sano ka hor uu keenay waa la xifaalatama waxaan dhahay 300 qofoodna waa uu saabsan uu la tagay jinnigaas 30 sano 300 qofood 300,000 ayuu galaaftay Soomaa maanta isagoo miir qaban soo celin. marka taas haddaan ka gudbo dalka doorasho ayuu aadayaa. doorasho haddii la aadayana xaqiiqdii dadka muqdisho waa halbowlihii dalka iyaga ayaa mas'uuliyadda ugu badan ee dalka ay ku soo dhacaysaa maadaama aan joogno dhammaanteen magaalada madaxdii dalka. waana waajib in la saaran in doorashadaas aan u wada guntanno oo aan daadihinno. aniga ka ra'iisul wasaare ahaanna xaqiiqdii maanta hortiina ka ballan qaadaya waxaan rabaa si cadaalad iyo hufnaan iyo alla ka cabsi leh inaan u fuliyo doorashadaas. waxaan tusaale u soo qaadanayaa saaxiibka iga horreeya ex-ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo musharax ah iyo madaxweyne farmaajo hadday tartamayaan waa ay sinaanayaan. wax dan ah oo gaar ah kama lihi doorashadan cid gooni ah oo aan leeyahay hebel adan ku wataa oo aan ku xaglinayaa ma jirto. cadaaladaas inaan falaan laga rabaa hadduu ilaahay raali ka noqdo. walaalahay musharaxiinta iyaga waxaan leeyahay markasta aan dhihi jiray igu kalsoonaada aniga ayaa idin jooga. dambiishaas wixii hore xun oo Sambalosh ku ridayna aan ku wada ridno hore aan uga soconno. marka reedaynayla aad u mahadsantihiin insha Allah dalkan waa ka gudbinaynaa dhammaanteen annagoo gacmaha is haysanno jinni iyo jinni aragay ninkii la qaybsado
annagoo wada jirna waa ka gudbinaynaa insha Allah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay munaasabad ay bulshada degmada Daynile ku soo dhaweynayeen kuna taageerayeen hogaaminta Ra'iisul Wasaare Roble ee arrimaha doorashooyinka iyo xasilinta caasimadda. munaasabadda uu soo qabanqaabiyay maamulka degmada Daynile ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda, xubno ka socday labada gole ee baarlamaanka, maamulka gobolka Banaadir, mas'uuliyiin iyo dadweyne aad u fara badan oo sitay boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo ay ku taageerayaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. faraskan asaga oo magac baxay waxa la yiraahdaa faraska Roble gobolka Banaadir iyo caasimadda magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya aad uga shaqeysa wanaageeda waxaan kuugu magac darnay asaga waxa la yiraahdaa faraskan ورانسك روبلا اللي ما شاء الله برشا وناكس ايوه ما سنتي هذا الله العدا ودي بنادك dadkii ka hadlay xafladda soo dhaweynta ayaa si wada jir ah u qiray doorka uu Ra'iisul Wasaare Roble iyo xukuumaddiisu ay ku bixinayso sidii dalka looga hirgelin lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ku wada qanacsan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada. marka run ahaantii waxa way Daynile waxa oo imaan jiray maadaama saaxiibadayda dhalinyarada saaxiibay way kulligood wada hayeen reer caalindi marka Daynile connection gooni ay lahayd maalmaha khamiista waxay lahaan jirtay horta adeesha meel swimming pool caalami ay lahaan jirtay warta Daynile la yiraahdo marka dadkan garanaynin midda kale waxa la yiraahdaa geedkan macaan oo murcoodkan waa laga soo dooran jiray iyo macallimiinta untarta macallimiinta ilmaha looga soo diro marka waxaan maleynayaa marka untarta iyo murcoodka soo gurano dad aan maleynayaa madax ka aan jiray saaxiibkay Mustafa Dhuxulow inay marmar naga xoogi jiraan oo miraha iyo aan soo gurano marka runtii aad baad u mahadsantihiin xafladan quruxda badan oo lagu soo dhaweynayo Ra'iisul Wasaaraha aad baan kaga mahadcelinaynaa midda kale sida quruxda badan ay Daynile u dhisantay midda kale waxaan rabaa aniga oo igu ah maxaa la yiraahdaa si gooniya maadaama ay leedahay Daynile airportkaas culayska airport Muqdisho weynaanayo inuu xogaa culayska ka qaado marka waxaan rabaa inaan mar hadii la yiraahdo aan soo fiirino aan soo ogaano dhulkan ciidanka doodaha ugu badan waxay ahayd dhulkan ciidanka laga rabo si magaalada dhinaca waqooyi ay ugu fiddo qadiyadaas anigu weli waa qabaa dhulkan ciidanka haddii dowladda iskale laakiin si in loo maareeyo oo webiga xagga laga mariyo ciidanka dhulkan dadweynaha loo qaybiyo howlaha guud baan ka shaqayn jiray haddaan dowladda dasa burbur lahayn mashruucaas waa hirgeli lahaa laakiin haddii annaga baashii iska burburinay haddana waxaa weeye dhismaha waa aragnay jiingaduhu u badan yahay dadka waa cabsanayaan waa dhul dowlo laakiin xal mustaqbal ah ayuu dhulkan nooga baahan yahay iyo dadkan xamaro sii badanaya aniga waxaan la yaabay fonfoorka aniga waxaan ka baxay 83 xamar waxaan ahay 3,000 ku dhawaad arday maanta xamar waxaan gashay gacanka fonfoorka 26,000 oo arday dadka meeqay kordheen waxaanu badan bay kordheen. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlay kulanka ayaa xusay in door weyn uu ka qaadan doono sidii dalkan ay uga dhici lahayd doorasho ku dhisan cadaalad. dalka doorasho ayuu aadayaa doorasho haddii la aadayana xaqiiqdii dadka Muqdisho waa halbowlihii dalka iyaga ayaa mas'uuliyadda ugu badan ee dalka ay ku soo dhacaysaa maadaama aan joogno dhammaanteen magaalada madaxdii dalka waana waajib in la saaran in doorashadaas aan u wada guntanno oo aan daadihinno aniga ka Ra'iisul Wasaare ahaanna xaqiiqdii maanta hortiinaan ka ballan qaadayaa waxaan rabaa si cadaalad iyo hufnaan iyo alla ka cabsi leh inaan u fuliyo doorashadaas waxaan tusaale u soo qaadanayaa saaxiibka iga horreeya ex Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo musharax ah iyo madaxweyne Farmaajo hadday tartamayaan waa ii sinaanayaan wax dan ah oo gaar ah kama lihi doorashadan
cid gooni ah oo aan leeyahay hebel adan ku wataa oo aan ku xaglinayaa ma jirto cadaaladdaas inaan falaa la iga rabaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo walaalahay musharaxiinta iyaga waxaan leeyahay markastaan aan dhihi jiray igu kalsoonaada aniga ayaa idin jooga dambiishaas wixii hore xun oo sambalosho ku ridayna aan ku wada ridno horey aan uga soconno marka reedayniila aada u mahadsantihiin insha allah dalkan waa ka gudbinaynaa dhammaanteen annagoo gacmaha is haysanno jinni iyo jinni arag iyo ninkii la qaybsado annagoo wada jirna waa ka gudbinaynaa insha allah ra-iisul wasaare Roble ayaa dardargelinaya habsami u socodka doorashooyinka isagoo kulamo muhiim u ah socodsiinta doorashada la qaadanaya qaybaha bulshada iyo dadka muhiimka u ah in dalkan ay ka qabsoonto doorasho u dhacda si cadaalad ah isaga oo dhinacyada ku qancinaya in ay muujiyaan kalsooni ballaaran. Zakariya Axmed Muuse TV Shabeelle.